isma badalo shakhsiga dabcigaa isbadala sidii ogsoona qofka isma badalayo jismi ahaan shalay hadii uu hal af hal waji uu lahaa bari ma ku arkaysi si ka duwan muuqaalka shalay ku aragtay yacni laba af laba waji laakiin macnaha isma badalayo shakhsiga dabcigaa isbadala ayaa ah waxa mar walba isbadalaya waa dabeecadda qofka aan hoga tusaaleeyo haddii aad qof shalay si ku aragtay maanta si kale ayaad ku arki kartaa oo ah xagga dhaqanka iyo fikirka taasi oo laga yaabo haddii aad shalay u arkaysi inuu yahay qof wanaagsan maanta inuu kula muuqdo qof aan u qalmin shalay saad maleynaysay dabciga aadamiga waa shay runtii aad u adag tahayna in la fahmo waana shay bini'aadamku uunan ka sinayn oo midka kale ka duwan yahay dabciga bini'aadamku waa isku dhis ama la kabyo kaasi oo ka kooban muuqaalka kore ee qofka shakhsiyadda qofka uu huwan yahay habdhaqanka aragtida guud ee nolosha riyooyinka iyo himilooyinka shucuurta qofnimo iyo kuwa kaloo fara badan waana ashyaadayna bini'aadamka ka sinayn kuna kala gedisan yihiin runtii waa adag tahay in qof si buuxda loo fahmo lana soo saaro wejigiisa dhabta ah waana midda keentay in cilmi baaris ay sameeyeen Jabaaniisku ku soo bandhigeen in shakhsi kasta leeyahay saddex waji waxayna yiraahdeen Jabaaniiska cilmi baarista sameeyay waxa aad leedahay saddex waji mid waa kan aad tusta caalamka kan xigana waa midka aad tusta asxaabta ku dhow iyo qaraabada kan saddexaadna waa midka aad adigu og tahay kaasi oo tilmaamaya shakhsiyadda dhabta ee adigu aad tahay haddaba si aan faahfaahin uga bixino aan mid u dul istaagno koowaad oo kan caalamka tusto ayaa kan aad Facebook YouTube iyo dhammaan aaladaha fogaan aragga lagu wada xiriiro dadku kugu arkaan halka waxaad la joogtaa waji gooni ah haddii aad dadka tusto daacadnimo wadaninimo aqoon-yahan cilmi baare aqriste dadka sida aad tusta ay kugu qaadanayaan dadka ma oga dhinacyadaada kale nolosha oo ah dabeecadaada dad la dhaqankaaga ixtiraamkaaga fahankaaga dharaadhirinta iyo rogdhiga xaaladaha iyo caqabadaha nolosha ku hor yimaada xijaab baa ka saaran dadka xagashaas kale aad leedahay mana ku garanayaan si wanaagsan oo gudahaaga ah iyo ka dhex guuxaya iyo qofka dhabta ay aad tahay wajiga waxaan ku sheegnay yaa kan la tusa caalamka iyadoo ay barkulinkiinu tahay aaladaha fogaan aragga wajiga labaad waa kan ay garanayaan asxaabta aadka kugu dhawiya qaraabada wajigan waxa uu ka soo yaro durugsan yahay kii hore waayo ehelkaaga asxaabtaada waxay garanayaan shakhsiyadaada waxaad jeceshahay waxaad neceb tahay dabeecadaada dad la dhaqankaaga fahanka iyo garashada rogroga iyo dharaadhirinta caqabadaha nolosha ku soo wajahaya hadafkaaga dhow dadkan inta ka qarsan aad bay u yartahay waxaana ka saaran xuub yar oo ciif ah ama ceeryaama aad si quman ehelkaaga iyo asxaabtaada uma garanayaan noloshaada sirta ah ama arrimahaaga daahsoon wajiga saddexaad oo wajiga dhabta qofka uu leeyahay waa kan kaliya qofina arag adiga iyo eebaweyne uunba weligaa ma muujin doontid wajigan waa milicsiga ugu wanaagsan ee qofka aad tahay waxaad u baahan tahay inaad fahanto cidda aad runtii tahay ma aha wax dunida adiga kaa malaynayso ama waxaad naftaada ka malaynayso laakiin waa waxaad adigu runtii adigu tahay waa inaad fahantaa awoodahaaga iyo daciifnimadaada mar alle marka aad fahanto qofka aad runtii tahay iyo waxaad dhabtii rabto waxaad naftaada wanaajin kartaa adigoo ka shaqaynaya inaad noqotid waxaad runtii rabta inaad noqotid naftaada adigu unbaa garanaya mar waliba ahaw sida aad tahay markaad adigu tahay haddaba daawada ma isleedahay arrinkaani waa mid xaqiiqda ka turjumaya fikirkaaga waa inoo muhiim waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan wabilaahi towfiiq